بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أخي المسلم ولكن مسلم كا هلكم waxaan kuugu soo gudbinayaa salaadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam qaabkii ay ahayd maxaa yeelay nabigeenu wuxuu yiri sallu kama ra'aytumuni usalli utukada sidaadii aragteen anigoo u tukanay salaadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadaba siday ahayd saxaabadii nabiga ayaa inoo soo gudbiyay salaadii nabigu qaabkay ahayd tallaabo iyagoon waxba ka tagin nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka uu salaada u istaago uu takbiiran jiray Allahu akbar buu salaada ku xiran jiray gacmahana kor buu qaadi jiray ilaa dhagaha ama ilaa garbaha Allahu akbar ayaa salaada lagu xiranaya markaas kadib labadii gacmood waa la isdul dhigayaa gacanta midig baa la sarreysiinayaa halka laabta hoosteeda yar ayaa saa loo dhigaya sida haddaad ugu qabato waa caadi haddaad sidaa u dhigtaa iyadana nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa uu sameeyey waa laga soo wariyey labaduba sax weeye halka markaad gaadho oo inta la timaado waxaad la imanaysaa ducaa oo istiftaax ama ducadii lagu furfuray ama dhikrigi lagu furfuranayay salaada waa kulbatii ku fudaata ee aad xafidsan tahay ayaad akhriyaysaa wajhatu wajhi alladhi fatara as-samawat ila aakhirkeeda haddaad xafidsan tahay iyadaad akhriyaysaa allahumma baa'id bayni wa bayna khataayaya haddaad xafidsan tahay iyadaad akhriyaysaa subhanaka allahumma wa bihamdika haddaad xafidsan tahay iyada ayaad akhriyaysaa mid walba ilaa aakhirkeeda ayaad gaarsiinaysaa سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك تاس أيا كمدك وكوبا مركا تادا ميسو كذب وحاد الله يمنيسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقرآن كبات بلابي دونتا استعاذي باك ورينيسا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبنا بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة دي آيات لما يستريسا مركا فاتحة لما يسو وحاد ورينيسا آمين markaad aamiin leedahay gacmaha kor u qaadimaysid taasumad aamiin oo oranaysaa kadib waxaad la imanaysaa suuraddii ku xigtay faatixada oo ay fiican tahay inaad suurad dhammaystiran ha koobnaato laakiin suurad dhammaystiran ay noqoto ayaa wanaagsan intaa markaad la timaado waxaad samaynaysaa ruknigii rukuucda ayaad la imanaysaa gacmahana kor baad u qaadaysaa sidii takbiiratul ixraamka oo kale allahu akbar saasay markaa rukuucdii noqonaysaa sidaas dhabarkaaga waad simaysaa madaxaagu wuxuu la sinmayaa dhabarkaaga labadaada gacmood iyaga oo markaa fidsan ayaad ku qabanaysaa labadaada jilib saasaad ugu qabanaysaa waxaad samaynaysaa faraha in yar ayaad saa u kala kaxaynaysaa sidoo kale xusulladaada waad ka ilaalinaysaa dhinaca ku dhajiso oo maaragtay waxa weeyaan saas ayaad uga fogeynaysaa taa markaad la timaadid waxaad akhriyaysaa subxaana rabbiya alaclaa وبحمده صدح قور انت مركز لا تمادد اذكارتي كلا سو ارورتين تي ادونتا يد كاخرسن كرتا مركز كدب واد سو كعيسا سمع الله لمن حمده gacmahana halkii oo kale sidii oo kale ayaad kor ugu qaadaysaa taasi markii ay markaa ku dhamaato waxaad soo istaagto waxaad oranaysaa rabbana lakal hamd ama allahumma rabbana lakal hamd ama rabbana walakal hamd way ku banaantahay intuba inta markaa hadan la timaadid waad sujuudaysaa sujuudi baa kuugu xigaysa waxaad samaynaysaa waad soo hoobanaysaa jilbihii baad dhigaysaa gacmaha hadana dhigaysaa fooda iyo sanka wada socda ayaad iyagana dhulka dhigaysaa subxaana rabbiya alaclaa wabihamdi baad leedahay xusulladaadu dhinaca way ka fog yihiin halkaasay sidaas yihiin haddii aanu qof kale kugu ag tukanaynin oo aanad ka baqan inaad ku dhibto سبحان ربي الأعلى وبحمده صدح قور كذبنا وتصوك عيسى الله أكبر ساسات فريسان عيسى فردقا مركا لوكتا مديق ويتاقنا عيسى وفريه إذا يدلوك كوهاين عيسى لوكتا بدحنا واتقوقلنا عيسى واتكو فريسان عيسى كذب وحضرنا عيسى رب اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واهدني وارزقني مركز كدي هذا الله أكبر سجودي لبعض سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده وتكسوك عيسى الله أكبر ويرفع لسان عيسى أذيكم وحبا آخرين إن كدبنا واد كعيسى بلا تكبير أذيكم تكبير لبعض دنبل إيمانيين دتنا رجعدي لبعض أيات الكوجو استاكت رجعدي لبعض وحد ولا إيمان عيسى
qaabkii aad ula timid ragcaddii koobaad sidii aad intii aad ragcaddii koobaad samaysay oo dhan ayaad samaynaysaa keliya waxaan ku jirin takbiiratul ixraamkii mar labaad soo celin maysid ducadii istiftaaxana iyadana mar labaad soo celin maysid acuudu billahi min ashaytaani arajiimti waad soo celinaysaa bismi illaahi araxmaani iraxiim faatixadii baad akhriyaysaa suuraddii kalena waad raacinaysaa qaabkii aynu sheegnay baad haddana u rukuucaysaa sidii aynu sheegnay baad haddana uga soo kacaysaa haddana qaabkii aynu sheegnay ayaad u sujuudaysaa markay sujuudahaasi ku dhammaadaan waa atixiyaadkii koobaad haddii salaadaada qaybi harsan tahay haddaana qaybi harsanayna waa atixiyaadkii u dambeeyey atixiyaadka koobaad waxaad u fadhiisanaysaa sidii aad u fadhiisatay markii aad sujuuddii koobaad ka soo kacday waxay noqonaysaa qaabkaasoo kale atixiyaadka dhexe markaad ka soo kacdo sujuuddii labaad ee ragcadda labaad saasaad u fadhiisanaysaa lugtaadii midig way taagan tahay faraheediina xagga qiblada ayay u jeedaan lugtaadii bidix waad ku fadhidaa saasaad u goglatay oo waad ku fadhidaa sidaas ayuu markaa atixiyaadkiina u noqonaya atixiyaadka waad akhriyaysaa ataxiyaatu lilah ilaa aakhirihi salligana nabiga calayhi salaatu wasalaam waad raacinaysaa allahuma salli calaa muxamed qaabka aad markaa u fadhiisanayso markaad atixiyaadsanayso gacmahaagii labadaadii gacmood waxaa loo baahan yahay iyaga laftoodana qaabka aad u dhigayso tii bidix gacantii bidix way fidsanaanaysaa saasay u fidsan tahay gacantaadii midig fariirada waad soo laabaysaa ta ku xigtana waad soo laabaysaa ta saddexaad ee fardhaxada ahna waad soo laabaysaa suulkana waxaad dhigaysaa baabacada darafkeeda halkaa baabacada koonaheeda ayaad dhigaysaa murdisadana waad fidinaysaa oo iyada ma soo laabaysid saas ayaad ahaanaysaa intaad atixiyaadsanayso tani way fidsan tahay tanna waa sidaasi haddii aad suulka iyo fardhaxada isku qabatay ood saa tiraahdid iyadana caadi weeyaan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam waa laga soo wariyey markaad atixiyaadka dhammaysato ood salligaa nabigana raaciso waad kacaysaa waxaad u kacaysaa ragcadihii ku harsan adigu allahu akbar kadib waxaad akhriyaysaa faatixadii suurad dambe ma raacinaysid faatixa keliya ayaad akhriyaysaa waad soo rukuucaysaa rukuucdii baad haddana ka kacaysaa waad sujuudaysaa sujuuddii horaad ka soo kacaysaa waad fadhiisanaysaa sujuuddii labaad baad la imanaysaa sujuuddii labaadna waad ka soo kacaysaa hadday markaa ragcadi ku harsan tahay oo salaadaadu ay 4 ragcadood ahayd sidii oo kale waad yar fadhiisanaysaa in yar kadibna waad kacaysaa adigoon allahu akbar odhanaynin markaad sujuudda ka soo kacayso unbaad allahu akbar odhanaysaa in yar baad yar fadhiisanaysaa haddana waad kacaysaa ragcaddii afraad iyaduna faatixada un bay leedahay faatixa keliya ayaad akhriyaysaa waxba ma raacinaysid waad rukuucaysaa waad ka kacaysaa rukuucdii haddana waad sujuudaysaa sujuuddii baad ka kacaysaa mar labaadkii haddana sujuudaysaa sujuuddii baad haddana ka soo fadhiisanaysaa waa atixiyaadkii dambe atixiyaadka dambe isaga fadhigiisu wuu ka duwan yahay atixiyaadkii hore fadhigiisii qaabkaad u fadhiisanaysaa waxa weeye isaga lugtaadii midig sidii ay markii horeba u taagnayd way u taagnaanaysaa laakiin lugtee bidix waad arkaysaa halkaasay ka baxaysaa lugta bidix hoosteeda ayay ka baxaysaa halkaas deetana halkaas sinta ayaad dhulka dhigaysaa ood ku fadhiisanaysaa waa atixiyaadka dambe kadibna atixiyaadkii ayaad akhriyaysaa farahaagu sidii ay atixiyaadkii horeba ahaayeen ayuunbay yihiin oo tii midigna way fidsan tahay tii bidixna tii bidix way fidsan tahay tii midigna saddexdeedii faroodii hore way laaban yihiin suulkiina baabacada koonaheeda ayuu yaalaa murdisadiina way fidsan tahay atixiyaadkaad dhammaynaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam baad ku saliyaysaa salligii dheeraa ayaad akhriyaysaa allahuma salli calaa maxamed wacalaa ali maxamed kamaa sallayta calaa ibraahim ilaa aakhirihi markaad isagana dhammayso waxaad haddana la imanaysaa ducadii waad ducaysanaysaa markaad atixiyaadkii dambe ku jirto markaad nabigii ku sallido calayhi salaatu wasalaam kadib waad ducaysanaysaa haddaad weliba keligaa tukanayso ducada waad iska dheeraysan kartaa intaad doonto ayaad ka dhiganaysaa markaad ducaysato kadib baad salaaddii ka baxaysaa adigoo leh السلام عليكم ورحمة الله وحق مدق إيجي السلام عليكم ورحمة الله بعد ليه هاي هدنا السلام عليكم ورحمة الله حق بدح أياد إيجي سامر لبعض كنا صلاة دي ساسي كوغودن تاي مركا سلامتو أديكو فردية أي هانا يسا أديكو فردية
ayaad waxaad oranaysaa assalaamu calaykum waraxmat ullah, assalaamu calaykum waraxmat ullah. saasay markaa salaadaadii kuugu dhammaanaysaa, waxaanay noqonaysaa insha allahu tacaala salaadii nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo kale. saasaynu isku ognahay insha allahu tacala. ilahay salaadeenna ha aqbalo. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.